taliyaha nisa dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gado ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Shambar ayaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay kulamo ay la qaadanayeen madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya kulankaas oo ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka dowladda Soomaaliya ay wado iyo sidoo kale nidaamka cusub ee maamulka Jubbaland ee lagu wado in laga dhiso magaalada Garbaxaare ee xarunta gobolka Gado. wararka laga helay gudaha caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in taliyaha nisa dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan uu wado kulamo kala duwan oo la qaadanayo hogaamiyaasha ugu sareeya dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa garadka iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbaland. kulamadaas ayaa daarnaa sidii marka loo dardargelin lahaa doorashada maamulka Jubbaland cusub oo lagu wado in laga dhiso magaalada Garbaxaare. kulamadan ayaa ku soo aaday xilli taliyaha nisa uu soo gaaray gudaha caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaana la sheegay in saaka iyo sidoo kale xalay uu kulamo kala duwan oo la qaadanayay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya waxaana kulamadaasi la sheegay inay ku soo dhamaadeen guul iyo sidoo kale safgarad ay gaareen taliyaha nisa oo markaa uu la socday gudoomiyaha gobolka Gado ee dhanka dowladda Soomaaliya. kulamadan ayaa la sheegay inay markaa looga gol lahaa in nidaamka cusub ee Jubbaland dowladda Soomaaliya ay doonayso laga dhisi doono magaalada Garbaxaare. sidoo kale dowladda waxay doonaysaa in golayaasha deegaanka codbixiyaasha marka laga diiwaan geliyo dhammaan deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado. arrimahan ayaa ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya ay doonayso in guud ahaan meesha laga saaro hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo dowladda ay u aragto in markaa yahay hogaamiye mayal adag oo markaa dowladda Soomaaliya uu ka soo horjeedo. warar ku soo kordhana hoyga Banaadir TV ayaad ka daawan doontaan.